ورحمة الله وبركاته shalayto halkan anoo fadhiya ayaa waxa ii timi hooyo Soomaaliyeed kadibna waxay igu tiri waxaan India ku maqnaa muddo fara badan taro waxaan filayaa muddo waxay igu tiri 6 jeer ayaa waxaan isku beeray ilmo ilaahayna iima suurta galin waxay tiri gabar walaashay ah oo aad daawo siiseen ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo iyaduna India tagtay oo waxaan aysan u suurta galin ayaa Ilaahay wuxuu aqbalay daawada aad siiseen ilmuuna alla ku siiyay maantana ilmaheedii bay haysataa anigana waxaan u baahanahay daawadaas aan u baahanahay walaalahayga qaaliga ah horta daawadaas Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummad fara badan buu Ilaahay u barakeeyay ummad fara badan buu Ilaahay ku caafiyay ummad fara badan buu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhabtooda ilmo ku saaray gurigooda cidlaha Ilaahay wehel ku siiyay daawadaasi waa daawadan dabaysha ama musiibiyanta loo yaqaano musiibiyaanka oo ah xanuun dilaa ah oo hooyooyinkuna aysan ku baraarugin ilaa muddo ay la rafaadaan oo dhaqaatiir fara badan oo ay tagaan oo daawooyin aysan markaas iyaga xanuunkooda haynin la siiyo isla markaana aakhirka ugu dambeeya ku soo laabto halka ay daawadoodu ku jirto qisooyin badan baan ka hayaa daawadaas taqriiban ilaa hadda 2 qiso kale aan ka hayaa insha Allah waan soo gudbin doonaa hadii Allah wadala uu idmo raali hada waan soo gudbin doonaa insha Allah labada qiso waxa ku jira laba hooyo oo burooyin ka cabanay ama burooyin laha oo maanta la yiraahdo waa negative burooyinkii alxamdulillah iyagana halkan lagu wadaagay labada weego isku xigo sidoo kale hooyo Soomaaliyeed oo iyadana saddexaad oo iyadana buro lahayd oo waliba aan Mareykan ila joogtay oo daawada qaadatay oo buradeeda 7 inch waliba lagu sheegay oo iyadana waan soo wada qisada insha Allah taala iyo Ilaahay ubadka uu ku siiyay iyo maalinta ubadka dhashay ilaa soo wadaagay insha Allah taala waan soo daba dhigi doonaa umusiibiyaan maxay tahay umusiibiyaanku daawadana daawo u tahay rabbi qofku ku daaweeyo waa xanuun makaanka dego ama waa nooc jin ah ama sixir ah ama il ah oo makaanka dega calaamadihiisuna ay aad u fara badan mar walbana waan ka hadlaa xanuunada ugu fara badan lagu garan karo waxa kamid ah dilan joogta oo soo laalaabta hadaa dilan joogta soo laalaabato aad aragto oo san dhakhtartu aysan xalin kareenin ama dhakhtartu aysan xalin kareenin dabayl baa ku haysay hadaalin number 2 qaarka dambe inuu aad ka daranto daal fara badan inaad ka daranto qaarka dambe oo mar walba maaragtay aad daalan tahay sidoo kale waxaad ku dareemaysaa ama hooyadu ay leedahay mar walba caado ka khalkhasho ama ka gurto ama ka soo daahda ama xilligeeda uu isdaba maro wareego aad u xanuuna xilliga caadada xanuun fara badan hooyadu ay daranto sidii iyadoo walac oo kala ah ay daranto sidoo kale madax xanuun fara badan xanaaq fara badan hurdo la'aan fara badan barar fara badan oo marka qaar lugaha ku yimaada sidoo kale ilmuhuna iska soo dilmaan hooyadu way qaadaysaa bila sabab cunugu soo dilmaya gogosha oo hooyadu ay ka cararto xiftiska oo ku yaraada xagga hooyadu inay xiftin jirtay bimaana qofka oo ka dhumo maxay ahaydey tawfiiqda bimaana qofku lacag haduu helo intuu ordaya mar xagu aadaya mar intuu aadaya waxba hooyadu bilaabaysa waa ka tagaysaa maxay ahaydey yaani qofku sidoo ahaan jiray marna ma ahaanayo sidoo ahaan jiray haday dhaqan tahay haday dabeecad tahay haday cunto tahay haday hurdo tahay qofku sidii dhan iska bedelaya caloosha aad u soo dibaraysa wareeg fara badan yaani waxaan ka wareer fara badan qofku marka qaar uu dareemo maaragtay dibro sidoo kale caloosha mar inta iimaanayso saadarteed xanuunkan waa xanuun dilaa ah waxaan fahmi karaa inuu Ilaahay qofka fahansiyo maahana daawadu marka wata waa 3 bilood qaybta Nairobi iyo Muqdisho iyo Hargeysa waad ka heleysaan Allah idinku shaafiyo xanuunkaasi waa dilaa qarsoon babasiir buu isku bedelaa kansar buu noqdaa xanuun badan buu noqdaa quraan isaar daawooyinkan qaado rabbi ha ku aqbalo insha Allah taala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh